ma ogtahay in 8 asbaabood oo aad samayso weliba alla dartii uga heliso barako badan? haddaba waxaynu maanta barnaamijka ma ogtahay ku soo qaadan doonaa 8daasi asbaabood aniga adiga iyo dhammaan qof kastoo jecel khayrka waxay u tahay faa'iido weyn. 8daasi asbaaboodna waxaa inoo soo jeedin doona Sheekh Maxamuud Abudalxa oo ka mid ah culimada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada ku sugan. annagoo uga mahadnaqayna waqtigiisa qaaliga ah ee uu khayrka inala wadaagayo daawasho wacan. kitaabka guriga lagu aqriyo quraanka malaa'igta ayaa degta. ma ku faraxsan tahay gurigaagu inay malaa'igtu degto? guriga quraanka lagu dhex aqriyo shayaatiinta ayaa ka cararta. ma ku faraxsan tahay gurigaaga inay shayaatiintu ay ka cararto? guriga quraanka lagu dhex aqriyaa dadka ku nool ilaahay baa wax walba u waasiciya, cimri iyo caafimaad, caqli iyo maskax iyo raaxo. khayr badan buu alla siiyaa subxaanahu jalla wacalaa. haddaba markaannu doonayno inay barako aanu helno, barakada waxaannu ka raadinaynaa kitaabka qur'aanka. waa bismillaah. carabkaaga markaad gurigaaga soo gelayso, markaad guriga ka baxayso, markaad musqusha gelayso, marka aad musqusha ka soo baxayso, markaad wax cunayso, kullu daalika markaad dharka xidhanayso, markaad iska siibayso, markaad seexanayso, markaad daabba iyo baabuur iyo tareen iyo bas iyo wax lamida aad fuulayso, bismillah iyo dikrullah, xuska ilaah, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. sadaqa inaad wax bixiso ood wax sadaqayso min asbaabi albarakati fi lbuyuuti atasaduq. barakada meelaha laga helo guryaheenna, barakada waxay ku soo degaysaa markaad wax baxsato oo aad miskiinka iyo faqiirka. walidaalika baa nabigu sal ly slam wuxuu yidhi ina asadaqata tudfi'u qadaba rabb. sadaqadu waxay damisaa cadhada ilaahay. xadiid kale wasadaqatu burhaan. sadaqadu waxay calaamad u tahay qofku inuu iimaan leh. sadaqadu ayadaa loo yar kuu noqon doonta maalinta qiyaamo oo kuu doodi doonta. silatu raxim, qaraabadoo la xidhiidhiyo, dadka ehelka iyo qaraabadoo la xidhiidhiyo. akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan oo aad dadka kula dhaqanto. dariska oo aad si wacan oo wanaagsan aad u dhaqaalaysaay waxaad ka helaysaa laba faa'iido. waa marka koobaad arsaaqadu ilaahay kugu waasicin. waa marka labaad cimri dheer oo cibaado leh ayuu alla ku siin. bal ila arag xadiidkan cajaa'ibka ah fi saxiixayn min xadiidi abi anas bni malik رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قفك جعل دونيا إلهي إنه أرزاقت بدن سيو، حولات بدن سيو، أولاد بدن سيو، عافمات سيو، عمر دار سيو، عقل بدن سيو. قفك دونيا إلهي سبحانه وتعالى inuu cimrigiisa u barakeeyana doonaya, ha xidhiidhiyo qaraabadiisa, ha xidhiidhiyo ehelkiisa, xataa hadday gooyaan isagu ha xidhiidhiyo. tabkiiru fii talabi alrisq, inaad subixii ka lahdo oo aad shaqo tagto, baraku alla ku siinaya, baraku alla ku siinaya. waxay shareecadeenu la dagaalamaysaa qofka inuu noqdo qof caajislow ah oo iska jiifa. la subixi inaad tagto caafimaad baa kugu jira, jirkaaga xataa caafimaad baa ku jira. subixi inaad ka lahdo waxbarasho u kala, shaqo u kala, xataa haddii aadan midna u kalahaynin jirkaaga soo wareeji. laakiin nabiga u duceeyey sal ly slam allahuma baarik ummatii fii bukuuriha, ilaahayo ummadayda kallihitaankeeda ilaahu u barakee. arsaaqadda ilaahay markaad raadiso ilaahay baa arsaaqad ku siinaya subxaanahu wa tacaala. iqaamatu salaa waa salaada oo la toosiyo, salaada oo la oogo, salaada inaad reerkaaga aad amarto, xaaskaaga iyo carruurtaada waxaa kugu jira baraka. qaala tacaala
asagoo ilaahay la hadlaya nabi maxamed sal ll slam wuxuu wa'mur ahlaka bisalaa wastabir calayha laa nas'aluka risqaa naxnu narzuquk waalcaaqibatu littaqwa. nabi maxamedow calayhi salatu wasalaam ehelkaaga salaada amar, xaaskaaga iyo carruurtaada salaada amar, weliba ku sabar. sabarka aad ku sabrayso annagana waxaan kugu abaalmarinaynaa inaan albaabada arsaaqada kuu furo. shaqala'aan ma ku haysaa salaada tuko. cidhiidhi qalbiga ma ka dareemaysaa salaada tuko. liibaan iyo sacaado ma rabtaa salaada tuko. reerkaagana amar. salaadu waa wuxuu nabi maxamed ku raaxaysan jiray sala allah alay slam. bilaalow salaada noo aqim, noo adin oo noo aqim oo noogu raaxee. wixii u dambeeye nabigu dardaarmay sal ly slam asalaata asalaa wamaa malakat aymaanukum. waxaa u dambeeye nabigu u dardaarmay asalaata asalaa. ilaahay arrinta u dhiibato, adigu asbaabta la imow, adigu dadaal, shaqada aad, dhakhtarka aad, hidaayada iyo hanuunka raadi, ilaahayna talada u dhiibo. bini aadam talada ha u dhiibanin. hal xadiid baan ku koobaya. nabigeenna sal ly slam wuxuu yidhi low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarzuqu اطayr tagduu khimaasan wataruuxu bitaana. haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen tala saarashada runta ah ee dhabta ah, wuxuu alla idin arsuqi lahaa sida shimbirta ilaahay u arsuqo. su'aal, kalluunka badda ku jira yaa cunto siiya? su'aal, shimbirta hawada lalaysa yaa cunto siiya? su'aal, xayawaanka yaryarka ah sida quraanjada iyo waxa lamidka ah yaa cunto siiya? allahu jalla jalaaluh. allaha kuwaa arsuqa ma awood bay leeyihiin oo ma xoog bay leeyihiin oo ma jaamacaday ka soo baxeen? quraanjaa jaamacad ka soo baxday iyo kalluun baa digrii wata oo digtooro ah oo saa ku shaqaysa, ma maqasheen? haddana ilaahay baa arsuqa. allahaasaa ku arsuqaya bas tala saara asaga. asaga isu dhiib, umuurahaaga asaga u celi. low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih larazaqakum kama yarzuqu اطayr. haddaad xanuunsato ilaahay u noqo, haddaad walbahaarta ilaahay u celi, haddaad wanaag doonaysa ilaahay u noqo subxaanah, haddii lagu imtixaamo ilaahay u laabo subxaanah, haddaad awlaad weyda ilaahay u laabo subxaanah, haddaad guur wanaagsan weyda ilaahay u laabo subxaanah. asaga tala saaro isu dhiib. ilaahay ayaa ku arsuqaya sida ay shimbiraha u arsuqo. muwaasalatu listikfaar waa inaadan kala goynin xuska allah. man lazima alistikfaar jacala allahu lahu min kulli dayqin makhraja wa min kulli hammin faraja warazaqahu min xayثu laa yaxtasib. qofka badiya subxaana allah, qofka badiya walxamdu lilah, qofka badiya laa ilaaha ila allah, qofka adkaartaasi shaqo ka dhigta, mar walbaba ilaahay xusa oo ilaahay weyneeya subxaanahu jala wacalaa, muxuu helayaa ma taqaanaan? qofkan istikfaarta kala goynin wuxuu alla siinaya ma taqaanaan? barakada soo degaysa ma taqaanaan? barakada soo degaysa samada ka soo degaysa. faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil الsamaaءa calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. qofka istikfaartaa badiya ilaahay barwaaquu siiyaa, samada roob baa ka yimaada, ilaahay carruur badan buu siiyaa, ilaahay beero badan oo barwaaqo ah buu siiyaa oo xoolo badan. saasuu ilahay leeyahy subxaana waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan gadaqa. hadday toosnaan lahaayeen oo istikfaarta badin lahaayeen samada roob baanu ka keeni lahayn. laakiin nabigeenna xadiidkiisa dhegay sal salam qofka daa'ima istikfaarta iyo astakfir allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar, ay wax kasta oo cidhiidhi ah oo uu dareemayo ilaahay baa albaaba u fura, ilaahay baa dariishada u fura. cidhiidhi kastoo dareemaysa ilaahay baa kaa qaaday. walwal kasta oo ku haystana ilaahay baa subxaana wa tacaala faraj kaaga furay.
وحانا لقى أرزقيا ميل آدم مرنا في لدينين هذا ما عربك سحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يدر دارا شرعي ما يقول بطي شرعي الإسلام كا يقول بطي ميل والواحد سبب الجنة تقول ليس وحن دونيا وحن كله أيان دونيا والجنة تقول قرا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطوا من ذكر الله عرب كاو يوسن كقلل ذكر الله ما أنت أنك عرب كأنه وحكم مشغول سيها إن بدروا كمذا حن يدل الاسكود ديرو إيه عيب لشيء صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم